habeen baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi niman muhaajiriina ku yidhi yaa rasuul rag baa dumarka dila baa lagu yidhi dumarkoogii bay garaacaan salaadii cishaay markuu nabigu fajarkii uu tukaday uu ka baxay ayaa nabigu isagoo caraysa muu saxaabadii la hadlay markaa buu yidhi waryaaday dhegaysta buu ku yidhi rag baa la ii sheegay reerahooga dila raggaasi raggii kuwaasi kuwii niigu khayr badnaa maahay buu rasuulku yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan أحسنهم خلقا وإن خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام رجيس بالحديث كاس في عن وضوح حديث كاس الله أكبر أكمل المؤمنين إيمانا ذات إيمان كوجو نقد كامل إيمان كوجو دمسك ترمي وكو أخلاق ذو ونكسن أبو نبي يقولي هو إنه أخلاق ذو ونكسن هو إنه خير بدنا وكو ريره خير بدن أنا ريرهايga u khayr badan buu rasuulku yiri iimaankii waxa lagu xidhay akhlaaq khayr badnidii waxa lagu xidhay in dumarkii reeraha laga warhayo loo sabafalo oo loo ihsaan sameeyo ana reerahayga u khayr badan buu nabigu u khayr miira nin saxaabada kamida ayaa gabadhiisiiba ku qeylqeyliday xaaskiisiiba ku qeylqeyliday markaa buu wanaag islaantan qaylo badana wayba idhibtee bal wixii islaantan laga yeeli lahaa Umar kala tasho markaa Umar ibn Khattab uu yimid markaa wuxuu maqlay markaa Umar oo isagana islaantiisii ay ku qayliyso ay leedahay sidana tahay ninkii baa markaa maqlay Umar oo la haysto wuxuu yiri warino taadu waa sahalay hayda amiirkii dhanay muuminiinta ba la haystaaye markaa buu iska noqdo Umar baa arkay nin sii socda oo ka daba hadlo wuxuu war soo noqo war hebelo soo noqo uu soo noqday markaa Umar baa ku yiri maxaa la noqotay buu wuxuu yiri amiir al-muuminiin والله أشكتنا هايو ريركي با يقول قيلب بطيو سلانتا هبلايو وحي لغا يلي لها إنا كالت تشدان وصعدو لكن وحي آنيغا يهايستي وح كدرن بعديغا كو هايستي بوكيدي قيلدي آنيغا اللي يقول هايتو كدرن بابا لغو هايابا هما المغليسي هاو المغلي بوكيدي وحوري دغاي سبويدي دريغا إي كاريسا بويدي دركيغا إي ميدا ciyaalkayga ii korisa aqalkayga ii hagaajisa qaraabadayda ii soo dhawaysa ubadkayga naaska ii siisa waxa soo dhawaa macruuf waajibkuma abuudi xaqa kulahay ma abuudi waa macruuf ay sameynaysa miyaanan inta yar kaliya anigu aan u adkaysan karin buu ku yiri dadkii xaqiina yaqaanay dadkaasay haayeen marka zamankeena innaka maanta wax walba way isbedeleen sidii adduunyadu isku bedeshay ayaa dadka dabeecadoodu way isbedeshay dumarka qaar fiican baa jira qaar aan fiicnayn way jiraan ragana qaar wanaagsan baa jira qaar aan wanaagsanayn way jiraan marka waa inay noqoto nolosha waa inay hayso marka balance isku dheelitir oo reerka qoysku ama dulqaadka gabadhu ku joogaa baa la yiri ama dulqaadka ninku reerku ku joogaa marka waxaan nigula dardaarmaynaa inaad noqotaan gabdhihii reeruhu sababtooda ay ku jireen inaad noqotaan oo ubadkiina korsataan oo gabadha muuminadu baa la yiri 20 khasladood ee culimadu ay ku sheegeen gabadha muuminadu inay leedahay 20 khasla rabbigeed bay taqaanaa baa la yiri ilaahay bi cilaaqo la leedahay sayida cilaaqo la leedahay baahiday qabtay xataa ninkeeda uma sheegatay ilaahay ba u sheegataa inagu imika waxa laga yaabaa wax alliyo wixii aan u baahan odaygan weydiinaa Soomaa waa nuqsaan gabadha muuminada sifaadka lagu yaqaan waa maxay hatta baahiday qabta ninkeeda waa ka qarsan balay saacadaha la jeefaabeenkii intay kacda ilaahay baahideeda u sheegan waa gabadha muuminada cafiifada salaadana aqalkeeda ku dhex tukataa kama baxdo aqalkeedu waa janno yar janna hadii adduunka jirta baa la yiri gabadha muuminada saalixada aqalkeeda janna ninka ololaya aqalka soo gali waa inuu aqalka ku qabooba iskeen tijaaradii ama ganacsigii ama adduunyadii buu inagu maqnaa buuq iyo wareer iyo qaylo iyo walwa iyo waxyaabo badan buu kala soo kulmay dibadii aqalka markuu soo gala markaa waa inuu janna aqalka ugu yimaada gabadhiisiyo qurux badan dhashiyo qurux badan aqalkiyo qurux badan hadal qabow gacmo furan qalbi furan waa inuu aqalka uu dareemaa inuu janno galay markaa
hadduu kulaylkii dibadda uu kaga yimid kulayl lamida miskiinku aqalka ugu yimaado dee markaa isaguna uu infijaari uu qarxi markaas waxyaabaha reeruhu ku burburaana taasaa ka mid ah hadday ninkeeda wanaag iyo khayr ay kala kulantana ilaahay bay ugu shukridaa baa layidhi hadday wax dhiba ay ku aragtana way u sabirtaa baa layidhi ceebta ninkeeda ay ku aragta baa layidhi bannaanka uma bixise way qarisaa gacantaadoo bugta waa gashaa la gashaa midana soomaalidu haddaad ninkaaga ceebtiisa iyo nuqsaantiisa qaraabadaada jaarkaaga aad u sheegtaa waa kaannaka adaga ceebtaadii bannaanka u saaray ka dhigantahay ila ninkan adiga ayuu kaa mid yahay waa noloshaadu kula qaybtama adige marka gabadha muuminadu waa cafiifad hadday ninkeeda wax wanaagsan kala kulantana waa ilaahay bay ugu mahadnaqi asagana waa uu shukrin hadday dabeecadiisu ay aragtay inuusan fiicnayna waa iska sabriyo ilaahay bay baryi hadduu ka maqnaadana baa layidhi way murugootaa hadduu guriga u soo galana way ku faraxdaa iridda markuu ka sii baxayana way sii eegtaa baa layidhi way tira ilaahu ilaali wayna waanisaa gabadhii saalixadda salafka ka mid ahayd ninkeedii markuu shaqo tegayey ayay ku tiri war xaggaad u baxdo wuxuu yidhi waa noo xoogsi tegayaa oo quutalyoon baa noo soo raadinayaa markaa bay ku tiri aniga dhashayda ilaahay nagaga baq naarta aakhirada adduunyada gaajadeeda waan u adkaysan karnaa laakiin naarta aakhira u adkaysan kare mayna luqmad xaaraana aqalka iga soo gelin bay ku tiri halkeen kala joognaa maanta innaka iyo kuwaas aniga dhashayda gaajada adduunka waan u adkaysan karnaa bay ku tiri laakiin cadaabka aakhira u adkaysan kari mayne ilaahay ka baq bay ku tiri maaragtaane wax ubadkayga cadaabna geeya hanoo keenin bay ku tiri marka akhawaati wa banaati waxaan igula dardaarmaynaa inaad guryihiina ka dhigtaan janno salaada ku dhex tukataan qur-aanka ku dhex akhrisataan ubadkiina dhaqanka wanaagsan ku barbaarisaan jaarka xaqooda iska ilaalisaan aad aqalkaagu noqdo masaajid ilaahay aad kaga xidhan tahay adiguna ilaahay ku xidhna dhashaadana ilaahay ku xidh aadam calayhi salaam markii ilaahay nebi aadan uu abuuray qalbigiisii uu xasili waayey deedna ilaahay caza wajalla wuxuu u keenay maaragtaane hurdo lulo inuu seexdo intuu jiifay ayaa feedhiisii intoo laga saaray ayaa laga abuuray xawaa markuu kacay buu arkay ruux haweenaya oo agtiisa taagan markaa buu ku yidhi ayaa tahay buu ku yidhi adigu markaa bay tidhi haweenay baan ahay markaasuu ku yidhi maxaa lagu abuuray markaasay ku tidhi adiga lay kaa abuuray si qalbigaagu uu u xasilo ood istiqraar aad u yeelato ayaa lay abuuray oo aniga min ajligaaba lay abuuray bay ku tidhi qofka bini aadamku lug keliya iskuma taagi karo labada lood wuxuu ilaahay ugu sameeyey labadaba inuu isticmaalo weeyaan qofka lug ay ka maqan tahay waad aragtana waa laangara ayaa la yidhaahdaa nolosha bini aadamkuna labadaabay ku dhisan tahay nolosha adduunyadu zawjaynkaabay ku dhisan tahay laba nooc cirkii dhulka ayaa ka soo horjeeda habeenkii maalintii kulaylkii qabowgii dhalashadii dhimashadii labkii dhidigii faqiirkii ghanigii gaalkii muslimkii abaartii barwaaqadii masiibadii farxaddii ilaahay baa nolosha sidaa ugu talagalay haddii dadka adduunyada ku nool rag keliya laga dhigi lahaana nolosha adduunku qiimo ma yeelateen haddii haween keliya laga dhigi lahaana haweenku keligood noloshu qiimo uma yeelateen marka ilaahay baa labadan isku sakhiray iskugu talagalay waana ilaahay baana markaa isku abuuray labadan waxaana ilaahay uu ku sheegay haweenku ragga inay u yihiin dhar oo kale ragguna xaasaskooga inay u yihiin dhar libaas hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna bay lahay dharku qofka bini aadanka laba faa'iido u leeyahay faa'iidada koobaad uu qurxiyaa oo qof
foolxun dhar qurux badan hadduu xidho dadku ishay la raacayaan ay leeyihiin war ninkan ama qofka dharkan quruxda badan la sita ku muuhaa baa la odhanayaa. qof qurux ilaahay u dhammaystiray haddii isagoo qaawan uu bannaankaa marana waa laga cawdu billaysan. marka dharku qofka bini aadanka uuna qurxiyaa uuna asturaayo ceebtiisuu ilaahay ugu qariyey. wa xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa kullukum caarin ilaa man kasawtuhu fastaksuunii uksikum baa ilaahay lahaa xadiis alqudsigii. dhammaantiin baa ilaahay waad qaawan tihiin ilaa anigu kaan huwiyeen marada aan ku qabto mooyaane aniga iga dalba baa ilaahay yidhi mara inaan nigu qabto ni huwiyo aniga markaa dharkay nigu qabanaya baa ilaahay yidhi. dharku labada sifa ayuu leeyahay. marka gabadhana waxaa la sheegay inay tahay ninkeeda inay u tahay libaas asaguna inuu xaaskiisa u yahay maaragtaan libaas. labada khasladood weeyaan. waad asturaysaa oo ceebta ninkeeday qarinaysaa. oo haddii ninkeyga uu noqdo nin gacan adag ama nin akhlaaq liita ama nin dabeecad adag ama nin gacan adag ama nin hadal xun hadduu yahay way asturaysaayoo ceebta ninkeeda way qarsan. waa gabadha saalixadda. hadduu maaragtaane ninkeegu waana libaas wuuna ku qurxinayaayo adiga maaragtaane gurigaad joogtaa dhashii baad u haysaa isaguna baahidaadii dibadda aad ka lahayd buu kuu soo daboolayaa. addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waa raaxo yar weeyaan oo nolol yaroo lagu raaxaysto. raaxada adduunyadana wuxuu nebigu ku sheegay inay tahay gabadha wanaagsan ee saalixadda. lama odhan raaxada adduunyadu waa lacag waa warshado waa guryo dhaadheer waa maado ma dhihin nebigu intaas. qul mataacu dunyaa qaliil baa nolosha adduunyada waa in yar. raaxada yar ee adduunyada taalana wuxuu nebigu ku sheegay waa gabadha wanaagsan weeyaan. khayru nnisaa'i man idaa nadarta ilayha sarratka waidaa amartaha ataacatka waidaa qibta canha xafidatka fii nafsiha wamaalaka baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haweenka ta ugu khayrka badan la buu nebigu yidhi waata ninkeedu markuu eego ka farxisa buu rasuulku yidhi. markuu ninkeedu eego hadal uu ku farxuu ka maqlaa waxa uu ku farxa ayuu ka arkaa soo dhoweyn uu ku farxa ayuu kala kulmaa. haddii uu amrana buu nebigu yidhi amarkiisa way adeeci oo way yeeli. waa wixii macruuf ee sharciga islaamka waafaqsan baa lagu yeelaya. wixii munkar ee macsiya lagu adeeci maayo. hadduu ka maqnaadana buu nebigu yidhi ayaduna waa gabadh dhowrsoon oo ilaalshan wixii ninkeedu u dhiibtana u sii haysa buu rasuulku yidhi. marka haweenka runtii nolosha bini aadamka meel wanaagsan baad ugu jirtaan oo ogaada meel muhiima ayaad nolosha noogu jirtaan. diinta islaamkana makaanada weyn bay diintu ina dhigtay. inaka basharka adduunyada jooga nolosha waxaad ugu jirtaan warshad baa tihiin. ininku maanta warshad waxaa dhal adduunka dhalanayso o dhan ininkaa dhalaaya. waxaa dhal koraysa ininkaa korinaaya. waxaa dhal la tarbiyadaynaya hooyaa tarbiyadaynaysa. hadday gabadhu hagaagtana baa layidhi dhasha inuu hagaagi. hadday gabadhu ay xumaatana dhasha inaga xumaan. marka dugsiga koobaad ee ilmuhu uu soo maraa maaha aabbo ama maaha macallinkee waa hooyada weeyaan. hooyo wanaagsan bay culimmadu leeyihiin dhasheeduna way wanaagsanaan. luqadan aan ku hadlayna af soomaaliga waa luqadii hooyaa la yidhaha luqadii aabba lama yidhaahdo. maxaa loo odhan waaye waa luqadii aabbo waa luqada hooyo loo yidhi laanna ilmuhu luqada hooyaduu bartaayo luqada aabbihii ma barto. oday soomaaliya hadduu guursado naag waddankan u dhalato kukuyaa tirahdaan miya qabaa'ilka ku nool luqada hooyadii unbuu baran ilmuhu luqada aabbo way ku adkaanaysaa inuu barto. halkaa waxaan ka fahmaynaa marka dugsiga ugu horeeya ee dadka wax soo bara ama dadku ay wax ka bartaan waa hooyada weeyaan. waa macallimad waa dugsi waa murabbiyad waa warshad. waxa ilma dhalanayoo dhan ninka calooshiinaaba ilaahay ku dhex abuuraa. yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin halaatin baa ilaahay yidhi. abuurka bini aadanka markii laga warramayey fii butuuni ummahaatikum baa la yidhi. wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum
lama dhihin aabbayaasha calooshooda laynagu abuuraaye waxa ilaahay sheegay caloosha hooyooyinkiin ayaa ilaahay nagu abuuray markii layna abuuraayey waliba 3 mugdi hoostooda ayaa bini aadankan ilaahay ku soo abuuray caloosha hoosteedu waa mugdi weeyaan madheerta hoosteeduna waa mugdi weeyaan riximka hoostiisuna waa mugdi weeyaan saanic kasta oo wax sameynaya meel iftiinay la doontaan waxay sameynayaan laakiin ilaahay waa khaaliq weeyaan bal waa khallaaq waa abuure weeyaan ilaahay azza wa jalla meesha bini aadanka uu ku soo abuuro ku soo qurxiyeyna waa meesha ilaahay uu yidhi 3 mugdi hoostooda ku soo sameeyna qofka bini aadanka shalaytadana laba masjid anigu jooga laba dhalinyaro ay timido walaalay haayeen way yaraayeen marka midna uu casaa midna uu madooba marin buu ahaa midna casaa buu ahaa arbad muudaysaba markaas ilaadan hooyo kaliya na wada dhashay aabba kaliya na wada dhalay ma sha Allah marka bal u fiirsada ilaahay qudradiisa eeg waa labada u wada hooyo midata wada dhashay waxa laga yaabaa kana inuu hooyadii raacay xagga maaragtaan kalarka midabka kana inuu aabihi raacay ba laga yaabaa 7 ilmood baa dhalaysaan 7da waxa laga yaabaa inay kala tabiicad noqdaan in awqaadda cimrigooga adduunka ay joogayaan ay kala duwanaato arsaaqadoodu inay kala duwanaato caqligoodu inuu kala duwanaado fahmigoogu inuu kala duwanaado laana ilaahay baa bini aadanka sida ugu talagalay marka dumarku basharka adduunyada jooga maanta adduunka dusheeda warshad haday jirto warshada ugu qiimo badan jirta waa inninka weeyaan laakiin waa dayacanteen oo walayna dayacay diinta islaamkuna waxay adduunka u timiday inay dumarka xuquuqdooda ay soo saarto oo shariicada islaamka ka hor jaahiliyadii carabta qabaa'ilka carbeed waxa dhici jirtay ninku 2 hablood oo wada walaalo ah inuu guursan karo laakiin shariicada islaamku way timido way xarimtay shariicada islaamku waxay timiday ayadoo ninku islaanta aabihi uu ka dhintay aayadiya uu guursan karo shariicada islaamku way xarimtay shariicada islaamku waxay timiday ayadoo ninka inani ay u dhalato uu ka murugoodo wayda bushra ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim wa ka ilaahay quraanka inoogu sheegay yatawara min alqawmi ma bushra bihi min suu ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi at-turab ala sa'a ma yahkumun ba ilaahay quraish ama arab zaman jahiligi waxa la sheegay hadii la yiraahdo ninka gabadh baa u dhalatay inay gabadha ka xumaadaan waayo waxay garanayeen ay lahaayeen ma gabadh baa ay dhalatay ha uu ka xumaanayo qof dadkana uu iska qarin jiray baa la yiri ama maceeb uu ku haysan bas uu aasiba ilaahay yiri labada midun bay marka dambe noqonayeen inuu ninku yiraahdo gabadh baa ay dhalato ihaana uu ku haysto oo dadku ay dacaayideeyaan oo la yiraahdo warwaaka kii gabadha u dhalatay waliba gabadhii haysta ama inuu maaragtaanay qaado oo noloshaba ku duugaba halka dadka oo maraya ayaa shariicada islaamku timido nabiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha man aala jariyatayn hatta tablugha ana wa huwa kahatayn fil jannah nabiga alayhi salatu wasalam ninka 2 gabdhood ilaahay uu ku deeqay 2 gabdhood u dhalatay ee koriyay ee kursiintooda wanaajiyay ilaa ay ka qaan gaadhaan buu nabigu yiri aniga ninka jannada sida 2 farood isku yihiin farda murdisada iyo fardhaxada la yiraahdo sida isku xigaan ayaan aniga isagu jannada isku nahay buu rasuulku yiri 4 gabdhood ninka u dhalatay ee koriyay ee kursiintooda wanaajiyay tarbiyadeeyayna ee u guuriyay buu nabigu alayhi salatu wasalaam naartay gaashaan uga noqdaa buu rasuulku yiri marka saxaabada ninka midaa yiri ninka 3 gabdhood ilaahay siiyayna 3duna waa la mid buu nabigu yiri ninka 2 ilaahay uu siiyayna 2duna waa la mid buu nabigu yiri ninka gabadh ilaahay uu siiyayna miduna waa la mid buu rasuulku yiri inta rag lama sheegin ogow haweenku nabigu sheegaya dadkana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ciddu ugu jeclaa haweenay bixay oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam amr bin aas baa nabiga masjidka dhexdiisa ku weydiiyay yiri ya rasuulullah dadka ayaad ugu jeceshahay markaa buu nabigu leeyahay Aisha ugu jecelahay buu yiri ragu jacaylka inii qabaan way sheegtaan laakiin inuu kuma sheegataan hawa ummuna hawa markii la abuuray ayaa nabi aadam bay malaa'iktu ay ku yiraahdeen aadamow hawa adiga lagu abuuray ma jeceshahay markaasuu ku yiri haa waan jecelahay buu ku yiri markaas hawa lagu yiri hawaayay adigana aadan dartiba lagu abuuray ma jeceshahay markaa beetir ma jeceli bay ku tiri daa'iman tabiicada dumarka waa lagu yaqaanaa laana xishoodkiina badan ninka waa xishoodkiina badan waa mukr oran ma yaa anigu laakiin xishoodkiina badan idan
عائشة بو النبي يقول عائشة dadka ugu jecelahay sallallahu alayhi wasallam Amr ibn As ba hadana ku yiri oo yaa kala hadana nabi Allah markaas aabaheed Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu oo su'aasha waxa ka keenay Amr ibn As saxaabada majaalis fara badan buu ku yiri nabigu dadka aanu igu jecel yahay markaas lagu yiri war ka fiirso markaa uu waan weydiin masaajidku markaa ku dhex weydiiyay isagoo nabigu darsi bixinaya dadna markaa uu nabigu dadka Aisha ugu jecelahay ma dumarkaaga uma jeeda nabi Allah raggan u jeeda aabaheed baan ugu jecelahay buu Abu Bakr thumma markaasuu nabigu hadana Umar halka markuu nabigu marayaan iska aamuso waxaan ka baqay inuu saxaabadiisa ka ugu dambeeyo jecel yahay inuu iga dhigaan ka baqay buu marka haweenka in la jeclaada oo jacaylka loo qabo dadka horteeda laga sheegtaa nabigeenni bay noo jiday alayhi salaatu wasalaam bal uu ku dardaarmay nabigu xaqiinu ku dardaarmay xaq ayaga kuma dardaarmay markuu dhimanay bi hajjat alwadaa iyo sankaraadkii markuu nabigu hayayba maalmaha noloshiisa inta u dambeysay erayadu nabigu ku celcelinayay waxay ahayd ala istawsu bin nisaa khayra bu nabigu war dumarka khayr ugu dardaarma shariicada islaamku way inay ilaalisay shariicada islaamku makaanad bay niyeeshay qiimo in niyeeshay diinta islaam warkan hay'adaha iyo gaaladu ay akhriyaan xuquuqda dumarka soo saarayna ay leeyihiin waa been waxba kama jiraan ayaka xuquuqda dumarka uga baabiye oo ku tuntay ayaka hooyooyinkood baa cidla ku dhimanayo oo labadii u wada dhashay cidla kaga dhaqaaqeen duq baad arkaysaa iyo duq islaam duq laba ay bay wataan mid cadaan aan ku nidhi ayga maxaad ka wadataa baan ku nidhi aw dhasha dhashay wuxuu dhashay aan dhalay labaan dhalool 18 jir markay gaadheen bay naga tageen laakiin aygu naga tagi maayo bay igu yidhaahdeen waa maxay laana noloshii qoyska ayaka ka duntay yaka kala dambayntii baa ka baabacdo ka duntay ilmihii ilaahay xaqiisa garan maayaan xaqa labada waalid garan maayaan xaqa jaarku ay leeyihiin garan maayaan xuquuqda qaraabada garan maayaan waayo diintii waxaasoo dhan baraysay ma haystaan iyagu inaga ilaahay diin islaam buu ina siiyey diintaasi markaa waa diin xuquuqdoo dhan bay markaa caddaynaysaa xaqi ilaahay kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii nebigaagu kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii ninkaadu kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii ilmahaagu kugu lahaa bay diintu kuu sheegtay xaqii jaarku kugu lahaayeen bay diintu kuu sheegtay markaa buu nabigeenu dardaarankiisii muxuu ahaa alaa war dhagihiina fura buu nabigu saxaabada ku lahaa istawsuu binnisaa'i khayra war dumarka haweenka khayr ugu dardaarma buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rifqan bilqawaariir qaruurad weelka qaruuradda ininkaa naga yaqaanay meel adag baad dhigataan oo ciyaalku aynan gaadhaynin laakiin weelasha balaastiga aqalka dhulkaas ka dhigtaan oo ilmuhu dhinac walba ha u laaglaagdo ma jabayo weelka laastiigu laakiin weelka qaruurada meel adag baad dhigataan fi xajjati alwadaac haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkii reer madiina awrtii ay fuushanaayeen ninkii maaragtaane awrta hoggaanka u hayay sugaantii awrta loo qaadayay buu qaaday markaasuu nabigu arkay awrtii oo si fiican tallaabada iskula heshay markaa buu nabigu ku yidhi rifqan bilqawaariir war awrtan waxaa korkooda noo saara waa qaruuradee yay naga jajabine macnuhu yay naga jajabine awrta suugaanta ka dhin buu nabigu yidhi socodka ha gaabiyaan oo ha yareeyaane qaruurad sida qaruurada loo ilaaliyay diinta islaamku inay ilaalisay marka shariicada islaamku ku tiri gurigaaga joog oo dharka jilbaabka qaado oo gurigaada ha ka soo bixin oo guri joog noqo marka shariicadu ku leedahay oo markaad safrayso qof maxram ah kula socdo marka shariicadu ku leedahay khiyaarka maaha waxay shariicadu ka qaadaysay bal shariicada islaamku aday ku ilaalinaysa adiga shakhsi ma tihid caadi adu gabadhu shakhsi caadi ma waa masnac waa warshad gabadh walba haddii la ilaaliyo oo la koriyo oo la barbaariyo oo tarbiyadeeda la wanaajiyo mujtamac wanaagsan bay adduunyada ku soo biirin Anas bin Ammar al-Asma'i ninka la oran jiray ayaa inankiisii u yeedhay baa leeyahay Ammar al-Asma'i baa wiilkiisii u yeedhay markaasuu ku yidhi aaba Anas oo kale aroos baa tahay buu ku yidhi caawa ma ka warqabtaa may gabadhiina waa la keenay qaadigiina hadda loo yeedhayaa sheekhi weligeediina uu joogaa markaa bal dharka iska bedelo dhar fiican soo xidhay baa lagu yidhi waaba caqdigii baa dhacay caawa aroosadiina waaba la soo diyaariyey aroosku beriga u fududaa innagu imika arooska mashaariic baan ka dhignayo meherkii baaba laga baxay baqaali baad ka dhigteen arooska haddii la qaaliyeeyo dhallinyaradu inay zinaystaan baad u dhib yaraysa ogow haddii arooska laga dhiga maaragtaana qiimihiisa la jabiyo
zinada la dagaalamaysayo ugu haddaad dooni zinadu inay yaraato waa inaan arooska fudaydinaa meherka waa inaan jabinaa maxaa yeele arooska uu ka kharash yar yahay buu nebigu yidhi ayuu ka baraka badan yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam zamanka dadku ay fiicnaayeen aroosku wax weynba lagama dhigayn labada waalidun baa is arkaaya markaaba deedna caqdiga unbaa loo caqdinaayay meherkuna wuxuu ahaa wax fudud bal gabdhaha qaarkood qur-aanka in la baro keliya lagu meherin jiray bas kalaamka ilaahay ba odhan jirta ibar suuraddaa ibar markaa yarkii gabadhii loo meheriyey gabadhan loo meheriyey weligii maba aragba laakiin ayaa u soo arkay hooyaa u soo aragtay walaashii baa u soo aragtay habaryartii baa u soo aragtay laga yaaba eedadii inay usoo haasawday gabadha u soo aragtay labada waalid buu isaguna ku kalsoonaa caqdigii markuu dhaco habeenkii bacdal cishaa'igii leylatu zafaaf ee gabadhii loo gelbiyey oo aqalkii galay waxay noqotay gabadh yaroo gaaban oo isaga maaragtaane xagga quruxda aanan cajabin isaguna nin dheer oo qurux badan oo laankaa la eg buu ahaa dhallinyaraduna waad ogtihiin oo de qof walba wuxuu rabaa qofkuu helayo inuu noqdo qof siduu u jeclaa in loogu abuuruu jecel yahay taana ma dhacaysa markaa gabadhii way ka naxdeen markaa isagiina uu ka naxay gabadhii markaa buu dhulka eego u warwareego waxay ku tidhi ha murugin bay ku tidhi ha murugoon laga yaaba khayr ilaahay inuu kaa soo dhex mariye markaasuu yidhi walle gabadhan hadal wanaagsan baaba ka soo baxee waa gabadh wanaagsan labadaada waalidna cidlo ku dhigi maayaan oo ku dayici maayaan ayakaa kuu doorbidee gabadhan iska bismilaysay buuhi habeenkii u horraysa leylatu zafaafkii markuu ilaahay caza wajalla wuxuu ku arsaaqay wiil bay dhaleen wiilkaasi wuxuu noqday imaam maalik binu anas gabadh barakaysan iyo wiil barakaysan markay isku tageen awlaad wanaagsan oo imaam daar alhijra waad garanaysaan imaam shaafici mucallimkiisii buu noqday imaamkii wuxuu ahaa 50 sannadood ama 40 sano ku dhowaad imaamka boqorka amiirka muslimiintu laga naadinaya xashka la oran jiray magaalada madiina iyo xarameynka nin ka fatwo kara ma jiro imaam maalik oo dhex jooga fatwa masaa'il diiniya oo dhan 40 sano masjidka nabi maxamed ninkii wax laga weydiinayay ayaa gabadhii muuminada saalixadu ay ku curuday marka warshada tihiine diinta islaamku markaan in ilaalinaysa la gabadha guriga ha joogto waqarna fi buyutikunna hadday soo baxaysana yudnina calayhinna min jalaabibihinna hadday meel masaafo maalin iyo habeen loo socdo ay aadaysana maxramkayga ha la socdo marka lagu leeyahay khiyaarka laga qaadi maayo bal adiga lagu ilaalinaya waayo shakhsi caadi adigu ma tihide waxaa tahay maaragtaane warshad masnac dhan oo basharka ilaahay uu ku dhex abuuro adiga ku dhex rakiban hagaaga aad hagaagtaan waxay ka dhigan tahay mujtamaca inuu hagaagi hadday gabdhuhu naga xumaadaan ilaahay nama xumeeyabe waxaa dhacaysa markaa dhallinyaradii inay iyaguna naga xumaadaan marka waxaan ku dardaarmaynaa waa inaad fahamtaan makaanada aad diinta islaamku ayna dhigtay iyo makaanada gabadhu mujtamaca ay ugu jirto